Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idiin soo gudbino. Alaaba barnaamijka waxaynu ku qaadaa dhignaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda dalka. Qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha oo ku kala qaybsamay nidaamka turxaan bixinta guddiyadii ay ka shakisanaayeen ee doorashooyinka. Maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu wajahayo caqabad siyaasadeed oo kaga imaanaysa xubnaha ugu cadcad golaha midowga musharaxiinta taa oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Saadaalin laga bixinayo in 2 bilood gudaheed aysan doorasho uga qabsoomi karin guud ahaanba dalka. Maxaa u sabab ah? Waan eegi doonaa. Xisbiyada mucaaradka Somaliland isbahaysi xoogan ayay ku dhawaaqeen xilli xaaladda ay ku xun tahay Muuse Biixi. Shacabka Hargeysana waxa ay codkooda ugu badan ku shubeen mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka. maxay ka tabanayaan xisbiga kulmiye oo hogaaminayay sanadihii ugu dambeeyay. Waan eegi doonaa hadduu Eebaka raali noqdo. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeyso aad soo booqatay. nagu soo biir, subscribe, saar gambaleelka, furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso. waa habeenimo ay sii baxayso Axad, Isniin ayaa soo galaysa. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 6 bisha Juun sanadka 2021. waxaynu u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. golaha midowga musharaxiinta ayaa ku kala qaybsamay nidaamka loo wajahayo guud ahaanba turxaan bixin ay sameeyeen guddigii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu u xil saaray inay war ka keenaan xubnaha laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ciidanka iyo saaxiibada madaxweyne Farmaajo. waxaana ay calaamadeeyeen 67 xubnood iyadoo dawladdu ay sheegtay dad tiradoodu ay dhan tahay 33 qof ilaa 34 qof in laga saari karo guddigaas. inta ka soo hartayna wax dhibaato aysan wadin. qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku kala qaybsameen hanaanka loo maray kala shaandhaynta xubnaha guddiga doorashooyinka, iyaga oo qaarkood si cad u diiday in ra'iisul wasaaraha weli villa Soomaaliya ay gacanta ku hayso howlaha doorashooyinka, halka kuwa kale ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin nidaamka wax loo wado. xukuumadda Soomaaliya guddigii ay u xil saareen 34 qof ayay calaamadeeyeen, halka ay doonayeen xubnaha ugu cadcad golaha midowga musharaxiinta 67 qofood in laga xayoobiyo guddiyadan. xubnaha la saaray ayaa u badnaa shaqaale dawladeed oo ka tirsanaa villa Soomaaliya iyo weliba hay-adaha kale oo dawladda ka tirsanaa. musharax Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa ku tilmaamay mid aan si wanaagsan loo turxaan bixin xubnaha guddiyada doorashooyinka oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba matalaya. waxaana dhanka kale go'aanka guddiga soo dhaweeyay musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku tilmaamay tallaabo horey loo qaaday isagoo bogaadiyay isbedelka. waxa uu Cabdiraxmaan Cabshakuur hadalkiisa intaa ku daray ma jirto talo laga geliyay ciddii cabashada qabtay, liiskana gudbisay oo ay ugu horeeyaan midowga musharaxiinta, mana cadda hanaanka loo maray turxaan bixinta xubnaha. waxaan aaminsanahay in inta badan xubnihii nise ka tirsanaa gaar ahaan kuwii dhar cadda ahaa ay weli si xoog leh guddiyada ugu jiraan. waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha in uu xalinta tabashooyinka u maro waddo sax ah oo daafuran, hufnaan iyo dhexdhexaadnimo leh si ay doorashada u noqoto mid la isla ogol yahay. dhanka kale Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa soo dhaweeyay kala shaandhaynta guddiyada doorashooyinka, isagoo qoraal kooban ku yiri waxaan soo dhaweynayaa go'aanka guddiga heer wasiir ee kala shaandhaynta guddiyada doorashooyinka, anigoo u arka inay guddiga dadaaleen muujiyeenna faafreeb ilaa iyo xad lagu kalsoonaan karo. Guuleed ayaa hadalkiisa ku sii daray waxaan soo dhaweynayaa in horey loo socdo si dalka uu u galo doorasho horseedi karta degnaansho iyo xasilooni siyaasadeed. intaas kadib dadweynaha waxay isweydiiyeen dad loo soo eedeeyay oo shaki la geliyay dhexdhexaadnimadooda garsoore ma noqon karaan, waxaana taasi ay noqotay mid ilaa iminka jawaabteeda la la'yahay. marka la eego golaha midowga musharaxiinta gaar ahaan Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in doorasho dalka aysan ka dhici karin haba yaraatee haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto. haddaba maxaad kala socotaa daawade shaqooyinka ay qabtaan ama dhinacyada ay ka tirsan yihiin xubnaha sida gaar ahaaneed looga shakisan yahay ee ay mucaaradka isha ku hayaan? guddigii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u xil saaray xaqiijinta xubnaha muranka ee cabashada laga keenay
oo ku jira guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa muuqanaysa in haddana ay wajahayaan caqabad kale. sida xogta aan ku helnay waxaa xubnahan ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweyne Farmaajo oo ay taageerayaal u ahaayeen 4 sano ee ugu dambeysay, hay'adda nabad sugidda Soomaaliya iyo weliba hay'ado kale oo muhiim ah oo dowladda qaybo muhiim ah u xil saaran. xogaha aan helayno ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in xubnaha ugu badan ee laga shakisan yahay ay yihiin kuwa ka yimid hay'adda nabad sugidda, isla markaana Farmaajo iyo Fahad Yaasiin si toos ay u hoosteeyaan, ayna tahay waxa ay qaabilsan yihiin in si toos ah ay doorashada ugu shubaan dhinaca madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaare Roble u gudbiyay liiska 67 xubnood oo ka tirsan guddiyada doorashada, laakiin 34 xubnood oo kaliya ayay tilmaamayaan inay yihiin dadka laga shakisan yahay ee hay'adaha kale ka yimid. lama oga sida arrintan ay u dhaawici doonto in doorasho waqtigeeda ku dhacda la helo, inkastoo mid ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya arrimaha siyaasadda uu leeyahay suuragal ma aha nidaamka ay iminka wax ku socdaan in 2 bilood gudahood ay dalka doorasho uga qabsoonto. kadib heshiiskii lagu saxeexday Muqdisho 27kii May waxa uu dhigayay in laga bilaabo maalintaas in doorasho dalka uu aado muddo 2 bil gudahood ahna la qabto. hase yeeshee wax ka yar 50 cisho ayaa hadda ka harsan xilligii loo asteeyay in la soo gabagabeeyo doorashada guud ee dalka, isla markaana habraacii lagu heshiiyay la raaco. Cabdiraxmaan Yuusuf Raabi oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka ayaa waxa uu sheegay in ay muuqato dib u dhac ku imaan kara xilliga doorashada loo ballamay, isagoo dhowr arrin u saweeyay. waxa uu siyaasigan ku dhaliilay daacad la'aan xafiiska madaxweyne Farmaajo uu ku wajahayo in dalka doorasho laga qabto, sida uu yirina ay ilaa 2 bil ka badan doorashada isjiidjiidkeeda la doonayo in la gaarsiiyo. dhinaca kale musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayuu la qabaa in madaxweyne Farmaajo markasta uu doonayo in caqabad uu ku noqdo hanaanka doorasho dalka ay uga dhici karto. marka la eego nidaamka ay iminka wax ku socdaan weli wax dhaqan galay ma laha wixii ka dambeeyay 27kii bishii May ee aynu ka soo gudubnay, marka laga reebo in isku soo dhawaansho ay sameeyeen mucaaradka iyo xukuumadda oo kaliya. laakiin howlihii muhiimka ahaa ee dhinaca doorashada ayaa u muuqda in faano la faray kama qodna ay yihiin. xagga iyo Somaliland haddaynu eegno doorasho xiiso badan ayaa halkaasi ka dhacday, saacadihii iyo maalmihii ugu dambeeyayna si goosgoos ayaa loo sii daynayay natiijooyinka deegaanada qaar ee doorashooyinka xoogani ka dhaceen. haddaba xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa waxay sameysteen isbahaysiyo, isla markaana waxaa muuqanaysa in culays siyaasadeed uu wajahayo madaxweyne Muuse Biixi. xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Cid ayaa ku dhawaaqay in isbahaysi ay sameysanayaan kadib markii ay kuraasta ugu badan ka heleen doorashadii Somaliland ka dhacday 31kii May aynu ka soo gudubnay. xisbiga Wadani ayaa noqday kan ugu kuraasta badan golaha wakiilada Somaliland, wuxuuna helay 31 kursi, halka xisbiga Cid oo galay kaalinta labaad uu helay 21 kursi. isla markaana waxaa muuqanaysa xisbiga talada haya ee Kulmiye inuu helay 30 kursi oo kaliya. muranka ka taagan doorashooyinka deegaanada qaar weli lama soo warin sida loo xalinayo, laakiin marka la isku geeyo labada xisbi waxa ay leeyihiin 52 kursi ama 63% aqlabiyadda golaha wakiilada. waxay sidoo kale guulo ka soo hoyeen golayaasha deegaanka. qoraal ay si wada jir ah u soo saareen labada xisbi ayaa lagu yiri hogaanka xisbiyada mucaaradka Somaliland ee Wadani iyo Cid ayaa ku dhawaaqay in isbahaysi ay ku hananayaan hogaaminta golaha wakiilada ay maayarada magaalooyinka kale ee dalka u gudbin doonaan. labada xisbi ayaa haysta aqlabiyadda xildhibaanada golaha wakiilada iyo golayaasha magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ay ka tirsan tahay. labada xisbi ayaa magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood oo xisbigiiba ay ka socdaan 5 xubnood, kuwaas oo ka shaqeynaya hogaaminta golaha wakiilada iyo maareynta magaalooyinka. waxaana tani loo arkaa inay wiiqayso awoodda madaxweyne Muuse Biixi oo rajo badan ka qabay in xitaa isaga haddii uu ka tago talada mid kale uu bedeli doono oo xisbigiisa Kulmiye ka socda. dhinaca kale dadweyne taageero u ah musharaxiinta guusha ka soo hoyay doorashada golaha wakiilada tan iyo deegaanka ayaa waxa ay dabaaldegyo waaweyn ka wadaan guud ahaanba xaafadaha ay ka kooban tahay Hargeysa. xaafadda Daami
ayaa boqolaal dadweyne ah waxay isugu soo baxeen halkaas iyaga oo taageero u muujinaya guusha uu helay qareen Barqad Jaamac Batuun oo xildhibaan wakiilada ah noqday ka oo soo ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa ee wakiilada soo baxa ee ka soo dhex baxa isla markaana ahaa nin si weyn saameyn ugu yeeshay guud ahaan dadweynaha reer Somaliland. Barqad oo ah nin ka soo jeeda dadka la heebsooco ayaa iminka waxa uu ku naaloonayaa wax aad iyo aad ay ula yaabeen guud ahaanba dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxaana uu ku soo baxay in ka badan 20,000 oo cod, taasi oo ka badan 3 ujibaar codadkii looga baahnaa inuu ku soo baxo. Barqad ayaa horaan waxa uu sheegay in reerkiisa gacan bidixeen lagu hayo in la yasayo isla markaana aysan jirin sabab loo yasayo. sidoo kale Barqad ayaa horaan waxa uu sheegay in dad ka badan 25 ilaa 30 qofood oo kaliya ay ku leeyihiin ciidamada saraakiil iyo iska daa wax kale oo hoggaanka ciidamada la xiriira. waxaase muuqanaysa in reer Somaliland ay u heeliyeen isla markaana cadaalad ay doonayaan inay dhadhansiyaan Barqad oo in badan ciil la ooyay horaana mar dawladda ay xabsiga dhigtay. guud ahaan intaasi waxa inooga idil barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idin soo gudbino. inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.